بسم الله الرحمن الرحيم وقصة جعيل oo dhab ah waxa ay ku dhacday inaan Soomaaliyeed waxayna u dhacday sida tan waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed waxaan ahaa gabadh aan jacaylka wax ka taqaan aysan jirin waxaan ahaa gabadh jecel shukaansiga ama danaysa inay u sheekayso habeenkii iyo maalintii 24 saac wiilashaasoo aan hal hadalkooda qancinayo isna uu yahay waan ku jeclahay hase haatee micnaha jacaylka waxaan ka aqaan haba yaraatee aysan jirin jacaylka waxa uu yahay waxaan ka aqaanay haba yaraatee ma jirto wiilasha waxaan ula sheekaysan jiray si qaab in aan jeclahay camal iyagoo aan iyaga niyadda ugu dhisayo hase haatee aan niyadda ugu baahanay maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday hotel ayaa waxaan la kulmay inaan Soomaaliyeed waan sheekaysanay waan warranay waan iswaraysi kadib runtii wiilkaas intuu ila hadlayay aniga dareemo badan ayaa igu abuuray runtii wiilkaasi waa qofkii ugu horreeyay ee baray jacaylka dhaqankiisa iyo jacaylka macaankiisa runtii wiil aan hilmaami karo maaha laakiin duruufta iyo waayuhu waxa ama ay i bareen muddo dheer kadib wiilkii wada socodkaan wada socday waan faraxsanay waana kulannay waliba 2 kulankaygu igu horreeyay waxaan ku noqday kharij albayt ama meel ka baxsan guriga waa markii ugu horreysay oo aan gurigayga nawaaxigiisa ama meel ka baxsan balla naftayda waxaan ka qaaday gurigayga wiilkii waan u tegay intaan u tegay kahor habeenkii oo dhan waan jiibsaday waan galgalanay marka dhinaca isku dhigay anoo gurigka qabo kabixitaanka beri aan guriga baxayo isna aan waagii baa beriyay xilligii ballanta la gaadhay waa baxay waan tegay waan u labmay iskaas lugna waa u murugaysay farxad dheer kadib waan sheekaysanay waxaan ku soo dhaweeyay waan sheekaysanay hase haatee wax ay abiga soo bixin jiray waxaa yeelay aniga jecel waxaan ka aqaanay jirto sidoo kaliya ay tiri oo uu sheekeeyay sheeko kadib soo dhaqaaqnay waan soo fadhiistay anagoo si farxad isku soo macsalaamaynay maalin labaad kadib waan kulannay waliba aniga waxay siinayaan arrinkiisa isla ballanta labaadna isaga musishin inoo magacaabay oo kharij albayt ama meel ka baxsan waan kulannay aan farxadeed rayn ku dheehan tahay soo jiidasho ku dheehan tahay kalgacayl iyo farxad ku dheehan tahay intii wiilkii jacayl saayid ay ku sigeeday hase haatee maanta waxaan ka hayaa habeenayti ma jirto isfahan la aweed darteed iyo muran la dhex maray awgeed iyo kalsooni darro oo iga aaminsanaa awgeed waanu kala hadhnay runtii aad in badanna waan ka noqday badanna waan iibnay waa markii ugu horreysay aan hooyaday ka qarsado dhib u dhacda ama kharij albayt inaan wiil kula kulmo runtii jacaylka maanta waxaan ka hayaa habeenayti ma jirto inan kasta Soomaaliyeed ama inan kasta muslimada waxaan kula talinayaa inay hal qof ku ekaato runtii wiilkaas waxa uu ii baray kelinimada maanta markii horena waxa uu ii baray jacaylka waxa uu yahay iyo in hal qof loo noolaado hal qof loo go'o hal qof loo sheekeeyo hase waa hal qof loo qalbiga hal qof loo furo